السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتون أحسن تقديش قيمها هي قدرين تي شرفت النقبضن كسر دواد ورك يقدم بيا حالة الصومالية وسجل لا تنكبش أبريل سنة كوالا بكون يقابي لما تنقض بدو ورك عدمت تنادي الله أود لبينا أقرأ وحق غيبك قبض دي حالة وجودية مدحونا مدحلات كسر دماضي فرماتشو كهذا هي حالة عكرنا ودك الصومالية يا أنت بدن وأكيد خبض دقال كوجهن قدميها قراها برلمان كهوسي فدرال كصومالية مرسل أول شيء إنه إعلامنا يدقال كرنا مدحونا مدحلات كسر دماضي farmaajo waxa geesiga ku maqli doona insha Allah wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble la sheegay in gabi ahaan baasna beesha laga saari doono farmaajo oo dhabaajab weyn ku noqdeen hadaladii ka soo yeeray madaxweynayaasha galmudug iyo sidoo kale Koontilaawe qodobada iyo kuwa kale ayaa faahin doona hadii Allah ugu diro inoo gaafadaan isku ka mid noqo saaxiibeen aan ku xiran shabakada wararka gaashaan wadada Soomaali TV adoo ku shaqeynaya comment-ka fariiska ka qaybsana saaranaya waa hagaag magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa inta badan waxa si toos ah looga hadlayaa khudbadii xalay uu jeediyay madaxweynaha madaxeedku soo dhamaaday ee farmaajo oo kaga hadlayay arrimo fara badan oo kamid ah arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya farmaajo oo khudbadaasi sheegay in dib loo isku noqon doono tirada afisona isla markaana dib loo furo doono wadahadal u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha madaxeedku soo dhamaaday ayaa jab weyn kala kulmaya madaxweynayaasha galmudug iyo sidoo kale Guudlaawe isla markaana gabi ahaan baqaadacay inay soo dhaweeyaan muddo korinta labada sano ay u sameeyeen baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya wararka rasmiga ah helna keenna caasimada Soomaaliya Muqdisho ayaa sheegaya in uu dagaal cilaamiyay gudoomiyaha aqalka hoose baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mursal isla markaana uu sheegay in dagaal ka dhana farmaajo uu si rasmi ah u bilaabi doono gudoomiyaha Mursal ayaa afka furtay waxaana uu sheegay in farmaajo uu gabi ahaan baaqash laga saari doono isla markaana kulanka lagu bilaasay in maalinka sabtida uu baarlamaanka hortaga farmaajo halkaasi uu kala kulmi doono wajhi kab aad xoogan gudoomiyaha baarlamaanka hoose dowladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha Mursal ayaa sheegay in farmaajo go'aamadii uu qaatay yihiin galaamo qalafsanaysa markaana sharci xun ku ah iyo sidoo kale waji gabax kuwa baarlamaanka oo soo dowladda federaalka ee Soomaaliya inta badan go'aanka farmaajo uu qaatay xalay isla markaana inta badan dadka dhiga u taagayeen oo ahaa khubad inuu jeediyo ayaa dadku inta badan ay soo dhaweeyeen isla markaana dadka inta badan waxa ay u fasireen farmaajo uu dalka dagaal u galin doono qodobada wararka kale aan leeyahay hadii Allah awood loo ogolaadana waxa kamid ah waxa si rasmi ah loo sheegay in gabi ahaanba goobta laga saari doono ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble haatan dalku sii galiyo qalaas siyaasadeed abidkii ugu xoogana madaxweynaha madaxeedku soo dhamaaday farmaajo ayaa loo kulmay caqabado waaweyn isla markaana ilaa haatan isku soo dejinaya kursiga madaxweynaha muddo 2 sano dalka uu madaxweynaha ka sii ahaan doono wararka rasmiga ah caawa aan helina la hadalna ayaa sheegaya in xaalka Muqdisho ay sii galayso jawi aad u kacsan wala laga cabsi qabo in khubadda la rabo inuu jeediyo maalinka sabtida ku beegan in farmaajo ku jeediyo aqalka baarlamaanka dowladda federaalka weedo xaaladda guud ee caqlina dalka Soomaaliya haatan ka taagan wararka rasmiga ah haatan naga soo gaaray villa Soomaaliya ayaa sheegaya in qorshe madaxweynaha madaxeedku soo dhamaaday oo farmaajo uu qorsheynayo in muddo sano ee muddo kordhinta baarlamaanka oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu diraan in si rasmi ah uu sii dhaqan galo waxa si rasmi ah gabi ahaanba u soo dhaweeyeen muddo sano dalka madaxweynaha ka sii ahaan doona farmaajo beesha caalamka sidoo kale dadka faldo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa gabi ahaanba aan soo dhaweeyay muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha farmaajo isla markaana la sheegay in dalka uu galayo caqabad aad u xoog oo laga cabsi qabo in dagaal xoog ay ka dhacaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho qaar ka mid ah midowga musharaxiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gabi ahaanba aan soo dhaweynaan hadalkan iyo sidoo kale khudbadii xalay uu jeediyay madaxweynaha farmaajo ku aadanaa in uu dib u furi doono wadahadalada u dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana uu farmaajo uu sheegay in dib loo furi doono wadahadalada u dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana la sheegay in gabi ahaanba xaalka Muqdisho uu sii galayso khalkhal aad u xoogan isla markaana shacabku ay haatan soo wajahayso caqabado aad u weyn ku aadan in dagaal uu ka dhaco caasimada Soomaaliya ee Muqdisho gudoomiyaha Mursal ayaa gabi ahaan baciliyay in dagaal ka dhana farmaajo si rasmi ah uga bilaabmo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay in gabi ahaan baasna daaqada laga saari doono wala uu safar ka hadlin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya hadalada ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo inta badan geed gaaban iyo geed dheer u fulay si nabadeed loo dhigi lahaa loo kala dhigi lahaa dadka isku hor fadhiya magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya walaal cabsida shacabku u leeyahay u taagayaan in dagaal ka dhaco Muqdisho iyadoo ay jiraan inta badan isku sida weyn ku yaala magaalada Muqdisho in gabi ahaan bay haatan ku sugan yihiin qaar ka mid ah ciidamada taabacsan mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya xaalka Muqdisho ma laga cabsi qaba in dagaal ay ka dhacaan maadaama farmaajo oo ilaa haatan ka tanaasulay muddo 2 sano oo dalka madaxweynaha uu ka sii hayn doono hadal haynta ugu weyn haatan dadku hadlayaan ayaa waxa ah khubadda la filayo inuu ka jeediyo baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya maalinka sabtida madaxweynaha madaxeedku soo dhamaaday farmaajo ku aadan in uu dib uga laabto muddada
korinta loo sameeyay isla markaana dalka muddo 2 sano madaxweyne uu ka sii hado oo madaxweynaha muddadeedku soo dhamaaday ee Farmaajo. wararka rasmiga ah oo naga soo gaaraya gudaha Muqdisho ayaa sheegaya in xaalku ilkaas ku shareerayo iyadoo aysan jirin wax uu nabadeed oo wada isla markaana la sheegay in wasaaraha xilgaarsiinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble uu wado dadaal ku aadan in nabad la dhigo dadka isla markaana caawa si rasmi ah oo hoygooda ku booqday qaar kamid ah mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya. وزراء حكومة الفدرالية الصومالية مدير محمد حسين روبلا يهوي قيد كوب وقضي مقدشة بدحولي هوري دولة الفدرالية الصومالية حسن شيخ محمود سياسة عبد الرحمن عبد الشكور والسمع رئيس هوري دلك الصومالية حسن علي خير أو سمر كان يكون كل من هو يكدقيه هنا مقدشة سمر كانوا بوغشر كاسو قلتقي بدحولها بوغشر كاسو قلتقي رئيس دلك الصومالية مدير محمد حسين روبلا بوغشر أو كأدنى دسين حرد مقدشة حاسة عكرسي له وطشان لها بدحولي هوري دولة الفدرالية الصومالية حسن شيخ محمود يسود ورئيس دلك الصومالية حلقاسين مدن محمد حسين روبله waxaana kulankaasi inta badan diiradda lagu saarayay si la xaaladda Muqdisho haatan ay kacsan loo dajin lahaa waxa geesta kale asna halkaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha hore xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr iyo waliba sidoo kale siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugnaa goobta lagu wada hadlayay isla markaana lagu hadlayay xaaladda cakran dalka Soomaaliya haatan ka jirta waxa goobtaas ku sugnaa labada madaxweyne Goodlaw iyo sidoo kale Qoorqoor oo iyaga soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta ah ee mudane Maxamed Xuseen Roble isla markaana ay ka wada hadleen xaaladda cakran dalka Soomaaliya haatan ay sii galayso kulabadan oo ra'iisul dalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta Roble oo ka haya Muqdisho ayaa ku aadan in dalku uu galo isla markaana loo jeesto doorasho cod iyo qof walow laga cabsi qabo in muddo kordhinta Farmaajo la rabay inuu ka noqdo maalinta Sabtida oo ku beegan hortagaya baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa geed u fulay si Muqdisho looga dhigi lahaa meel xasilloon isla markaana aysan ka dhicin wax qalaasay sidoo kale dagaalada haatan laga cabsi qabo in Muqdisho ay ka dhacaan dowladda waxaa Muqdisho ka bilaabay waa nabadeed oo wada ra'iisul xilgaarsiinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo la kulmaya qaar kamid ah mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya mucaaradka ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay ra'iisul dalka xilgaarsiinta ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble isla markaana kala hadlay xaaladda cakran ee dalka Soomaaliya ka jirta xilligan ayaguna si rasmi ah isku xog wareystay isla markaana sheegay in aysan rabin in khalaas ay ka dhacdo caasimada Soomaaliya Muqdisho isla markaana aysan cidna tan u hayn iyadoo shacabku ay dhahan waxaan u dareemi doonaa shacabka inaan khalaas ka dhicin caasimada Soomaaliya ee Muqdisho siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa goobta ka hadlay waxaana uu sheegay inay markaas soo dhaweeyaan go'aanka oo ra'iisul xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu qaatay ku aadan in dib loogu noqdo tendada aviation isla markaana dib loo furo wada hadalada u dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ra'iisul uu sheegay in uu aad ugu maasan yahay aad ugu mahadceliyay qaar kamid ah mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ra'iisul uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta uu la kulmo qaar kamid ah mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ka wada hadlaan xaaladda xilligan cakran ka jirta waddanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xilligan u fulay geed gaaban ee geed dheer si dalka doorasho cod iyo qof ah ay uga dhici lahayd warbixinta ka soo shabakada wararka gaashaan wadani